asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. dhammaantiin waa idin salaamay meel kastaa joogtaan. magacayga waa cali maxamed cusmaan cali baashi oo halkan diyaar idinkugu ah maanta inuu idiin soo gudbiyo sida ugu macquulsan ama sida ugu sahlan aan u samaysan karno email, gaar ahaan gmailka. haddii aadan lahayn email ama aadan aqoon sida emailada loo diro ama emailada lagu soo diro sida loo akhristo iyo emailada sida layskaga nadiifiyo ama loo maareeyo, guud ahaan videogan iyo videoyada xigo insha allah waxay noqon doonaa kuwo kugu munaasaba ama muhiim ku ah si maaragtay ugu fiicnaato isticmaalka emailka. haddii aad kanaalkan ku cusub tahay fadlan subscribe, hana iloowin in like saarto, asxaabtan inaa la wadaagto waxay ay tahay run ahaantii dhiirigelin. Okay, marka hore waxaa u baahan tahay inaad sii ogaato magaca baxsan lahayd iyo passwordka ku xiran lahayd, iyo waxaa kaloo u baahan tahay inaad internet haysto, computer iyo ama mobile midkood inaad haysto. videogan wuxuu ku saabsan yahay oo keliya marka ka samaysanayso gmailka computerkaaga. Okay, marka hore waxaa u baahanaa inaan galno Google. ayaa tegaynaa pageka Google. marka imaano waxaa ku qoraynaa gmail. Okay, markaad taabato wuxuu keenaa marka pagekan sign in. waa taaban kartaa ama Google Gmail uu keeni karaa Gmail Google. marka Gmail taabato pagekan ayuu keenaya. marka inta imaato haddii aad hore u lahayd Gmail meeshan ayaa gelinaysaa telefonkaada ama Gmailkaada, laakiin hadda waxaan samayn doonaa mid cusub. si aan u sameyno mid cusub waa inaad tagnaa create account. wuxuu ku weydiinaa marka for yourself, adiga ma isku rabtid mise businesskaaga, ganacsigaada, shirkadaada ayaa u samaysan rabtaa gmailkan cusub. waxaan rabnaa in anaka u samaysano nafsadeena myself. markaad taabato qaybtan ayuu keenaya. qaybtanna waxaa ka muuqata first name, last name, magacaada ay qoraysaa, last name magaca waalidka, gmailka baxsan lahayd magaciisa iyo password. Okay, magaca baxsan lahayn waxaa ka dhigaynaa cali ka dhig. tusaale hadda anigaa samaysanayo, tusaale ahaan adigana magacaada u bedelan kartaa. markaas gmailka waxaa ka dhigan kartaa magaca rabto. waxaa muhiim laakiin inuu ahaado mid gaaban oo fudud dadka kale maaragtay inaa u sheegto. emailka inuu adagyahay inuu fudud yahay waxaa ku ogaan kartaa markaa telefoon qof ugu sheegaysid kartaa. sidaas darteeda emailada professionalka way ka maqan yihiin, aan nambaro badan mala socdo, waa emailka gaaban aad u fudud. hadda tusaalahaan waxaa ka dhigan doonaa emailkan ama gmailkan ali in la ogolyahay in kale uu ii sheegi doono. haddii aan la ogoleen waxaa soo fuulaya magaca calaamad guduudan ama qoraal guduudan. fiirso, this username is taken. magacan waa la qaatay. Okay, marka inaa wax kale ka dhiga waaye alios. wax kale ku daraya click meel kale markaa ku siiyo waa lii sheegaya alios@kabro.com. okay, magacan waa diyaar, qof hor u qaatay malaha. okay, midkaan aan qaadano password ayaa samaysanaynaa. passwordka haddii aad rabto in aad aragto waxa aad qoraysid meeshaas ayaa taabanaysaa show password. marka adiga tahay keliga aad samaysanaysid waa muhiim way fiican tahay inaa calaamadeyso si aad u aragtid waxaa qoraysid. waa inay isku mid ahaadaan labadan qayb. waxaa kan ku qortid godkan waa inaa ku qortaa. tusaalahaan inta waxaa ku qorayaa waa inay ka koobnaadaan sidoo kale sharciyada loo baahan yahay ama xeerarka. waxaa lagu xiraa 8 god inuu ka koobnaada 8 character, inuu ahaada xaraf weyn inuu ku jira, xarfo yaryar inay ku jiraan, iyo simples waa sida calaamad su-aalka iyo calaamadahaas oo dhan simples ayaa lahaa. okay, hadda waxaa ka dhiga ali design 2020 calaamad su-aala ku daraya. okay, asigoo kale inaa qoraa laga rabaa. kanaa tagaya waa calaamadeynaya copy paste ayaa meeshaas ku taabanaya si aada ma aragtay u qaldin. okay, show haddaa rabto ama qof kula joogo in laga arko markaad rabin hide ayaa taabanaysaa, laakiin hadda show dheh si aa u aragno. okay, next ayaa taabanayna. markaas waa inaan xasuusnaana muhiim magaca passwordka ka dhiganay waa inaan xasuusnaana. okay, next. markaa next taabato wuxuu ku weydiinayaa ma u baahan tahay passwordka in lagu save gareeyo. haddii aad computer aadan lahayn aad joogtid ma fiicna inaad ku save gareyso, sababtoo ah qofka kaa dambeeya wuu soo gali karaa ama wuu heli karaa maaragtay passwordkaada ama emailadaada wuu akhrisan karaa. sidaas darteeda not now ayaa taabanaysaa haddii aadan computerkaas lahayn. haddii aad leedahay save waa ku taaban kartaa. hadda waxaa leenahay not now, inkastoo aan computerka aniga iska leeyahay.
qaybtan labaad oo keen marka qaybtan labaad waxaan la weydiinayaa wadanka joogno hadda automatic uu soo qabtay wadanka joogo Norway teleefankaaga geliya lidha meeshaas si loo hubiyo in adiga tahay qofka maaragtay soo dalbanayo okay numberkii ay gelinaya qaybtan labaad waxaan la weydiiyay recovery email hadii emailkan oo ka xirmo meel laga la soo xiriiro oo password lagu soo diro okay qof aad qaano oo emailadiisa si fiican u maray hadda ogtahay ama aad ku kalsoon tahay emailkiisa oo ku qoran kartaa marka hore ina u sheegtaa inaan ku qortay ama email kala daa leedahay meeshaas ay gelinaysaa hadda email kala ayaa leeyahay ali@outlook.com emailkaas waa leeyahay kaas waa lagu soo diri karaa recovery marka u baahdo hadda dhalashada meeshaas ay gelinaysaa dhalashada ay gelinaysaa si hadhow kugu sahlanaato inaad soo maaragtay emailkaada recovery ama dib u soo hesho okay qaybta ugu dambaysa oo genderka waxa lagu weydiiyay female dumar ragga iyo waxa tahay ina meeshan ku cadeyso hadaa rabto customer ka dhigi kartaa laakiin inta badan female email anahay hadii aad rabto waa qarin kartaa waxaad leedahay rather not to say mu baahna inaan sheego waa qarin kartaa hadii aad rabto female ka dhigo ama male oo adiga dooqa hadii dhig male sababta male ay ahay rag next ay taabanaa markaas okay qaybtan kale waxa ka dooranayna express personalized step 1 okay hadaa rabto qaybta labaad waa dooran kartaa laakiin inta badan kan horeeya ay qaataa u baahnid ina ku mashquusho ka bacdi wuu ku sheegay confirmation waa contractigi la gal lahayd gmailka ama google kadib waxaad taabanaysaa markaa wada akhriso hadaa rabto akhrin kartaa hadaa rabto ka boodi kartaa qaybta hoose ay imaanaysaa confirm ay taabanaysaa okay hadana waxa imaaday weli contractigu socdaa kadib agree waa kugu raacay oo heshiiska markaas waa wada gasheen waa saxiixda marka contractigi okay intaan wixii ka dambeeyay emailkaadu uu furan yahay sakana yar kadib waxaa haysataa email cusub oo adiga samaysatay oo markaas awoodo inaad maareyso oo aad u isticmaali karto shaqadaada waxbarashadaada iyo xataa familka inaad kula xiriirto informationada aad rabto sawirada waxaad rabtaa ku diri kartaa iyo faylasha noocyo badan kala duwan waxaa kaloo haysataa 15 GB oo free ah oo wax aad ku save gareysan karto okay gmail wuxuu ku fiican yahay waxa ku samaysan kartaa PowerPoint Excel waa ku haysataa Word waa haysataa waxa soo dhan inaad lacag ku bixiso u baahnid meeshan ayay ku dhex samaysan yihiin okay setting good hadaa rabto inaad wax ka bedesho waxaad tagaysaa calaamadaas gearkaas taabanaysaa kadib wax waa ka bedeli karnaa settingka ama sida u muuqdo page-keena laakiin videogan ma aragtay gudaha ma usii gali doono intaas ayaa kusoo koobina insha allah okay videoga xiga insha allah waxaan soo qaadan doonaa sida inboxka loo maareeyo waxyaabaha dirtay iyo waxyaabaha lagu soo diray iyo xataa waxaan soo qaadan doonaa sida email cusub loo diro iyo sida adiga xitaa isku soo diri karto email cusub oo tijaabo intaadan qof u dirin ka hor marka hore waa inaan isku soo dirnaanka markaas kadib waa diri karnaa okay videogeena maanta intaas ayaa ku joojin doonaa insha Allah hadii ay jiraan waxyaabo aad jeceshahay inaan video ka soo sameeyno fadlan commentiga hoos inoogu soo qor wixii talo iyo su'aal ii soo jeedina ha iloobi inaad commentiga hoos inoogu soo qorto waxaan jeclaan lahaa inaad kanaalkan like ta siiso subscribe-kana aad saarto asxaabtana aad la wadaagto aad iyo maasantihiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh